fadlan subscribe saar hana ilaawin inaad gambaleelka furato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay liinta u leedahay qurxinta wajiga. markaan liinta ku hadlayno, liinta waxay waxtar weyn u leedahay qurxinta wajiga, ayadoo xataa awood u leh in mideynta muuqaalka wajiga ay aad u soo iftiimiso. sidoo kale waxaa laga helaa fitamiino dhowr ah, waxaana ka mid ah fitamiin C oo kale. markaan ku hadlayno liinta, waxaa ka buuxo nafaqo aad u badan ayaa ka buuxo. kaliya looma isticmaalo in cunto lagu cuno, kaliya looma isticmaalo, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada qaar xataa lagu daaweeya. marka halkan waxaan kusoo gudbi doonaa 5 faa'iido ay u leedahay inay qurxinta wajiga ay ka qayb qaadato. sidoo kale kaliya kuma eka inay wajiga qurxiso ama maqaarka, waxay kaloo xataa ka qayb qaadataa waxyaabo kale, waana arki doonaa insha Allah. lambarka koowaad wuxuu noqon doonaa waxay hoos u dhigtaa in maqaarka ay soo gasho duqnimo wax la yiraahdo, ama kadkudood, ama wax la yiraahdo qofkii uu daayar inay loo maleeyo qof duqnimo oo kale ah. marka fitamiinada laga helo liinta waxay marka ka caawinaysaa inay hoos u dhigto gowga degdega ah. fitamiinadaas ay waxa ka caawinayaan qofka marka inuusan degdeg aad u weyn ama degdeg muuqaalkiisa aysan isku bedelin marka. lambarka labaad waxay maqaarka ka dhigaan mid jilicsan oo siman. waxaa ka buuxo liinta markaa ka hadlayno ashitooyin aan ka buuxo. ashitooyinkaas waxay ku qallaayaan marka jirka aad marsatid maqaarkaaga. haddaba waxaa fiican marka in aad la isticmaasho waxyaabo kale, sida waxaa fiican inaad la isticmaashid haddaa heli kartid malabka oo kale. malabku waa aad u fiican yahay inaad la isticmaashid marka. lambarka saddexaad waxaan dhihi doonaa waxay u wanaagsan tahay timaha. kaliya kuma eka maqaarka ama qurxinta wajiga, waxay kaloo ka qayb qaadataa qurxinta timaha. sidoo kale timahaaga ay waxay aad u soo iftiimisaa, timaha ay waxay ka dhigtaa mid aad u soo iftiimsan, mid jilicsan, mid aad u wanaagsan ayay ka dhigtaa marka. lambarka afraad waxay kala bixisaa ay difaacdaa cinjiyaha marka. lambarka shanaad waxa waaye wuxuu maqaarka ka dhigaa mid iftiimaya marka. haddii marka aad marka aad u isticmaashid marka, haddii aad maalmo yar isticmaashid, hal maalin laba maalin laguma dareemo wax marka, waa inaad isticmaashaa in muddo marka. sidoo kale xataa waxay ka caawinaysaa kalarka maqaarkaaga inuu aad u soo iftiimo marka. haddii aad in muddo wadid, tusaale bil, 2 bil, sanad haddaa wadid, waxaa aad iyo aad laga dareemaya ama lagaga dareemaya in isbedel weyn aad weyn uu kugu dhici doono marka haddii aad wadid. tusaale ahaan marka haddaan idin siiyo kale, marka waxaad soo qaadataa marka haddii aan idin sheego qaabka u isticmaali lahayd marka. dad badan ayaa yaqaanin aan aqaanin qaabka u isticmaali lahayd marka. haddaan idin soo gudbiyo qaab ka mid ah u isticmaali karto, waxaa ka mid ah inaad soo qaadatid hal xaba liin, ama liin inaad soo qaadatid aad ku darsatid xoogaa biyo ah. biyaha xataa waxaa fiican inaad ku darsatid biyo xoogaa oo warm ah oo xoogaa diiran marka. kadibna aad marsatid muddo 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo, kadibna waa inaad iska dhaqdaa marka. markii aad samaysid aad iska dhaqdidna muddo aad wadidna oo in maalmo badan aad isticmaashid, insha Allah waxaad arki doontaa isbedel aad u weyn. sidoo kale waxaa fiican xataa haddii aad heli kartid malab in aad asigana ula isticmaashid, insha Allah waxaad arki doontaa isbedel aad u weyn. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan ha ilaawin subscribe inaad saartid si aan casharadii aan usoo gudbino aad ula socotiin. wixii comment ah oo dheeraadna hoos